وبركاته. مرت شرفت قيمها بدن كلا دقاتيتا كلا الدول وفالبو منصب كيسي مجلس عيسى سلامي. وقت جانا ويري هاي لكن مركو هري وحنا كجود بكرين إن أمهد عليو أوركا دخاتير تلفها الصوماليات وجونا همبليو كونفرنسي وهري أو صومالي Fast Somali Orthopedic Association Conference runtii waxaan rabaa inaan isxasuusin dhamaanteen waxay noo dhigeen associationada kale hadday noqon lahaayeen kuwa pathology-ga oo aan ka tirsanahay kuwa pediatric-ga kuwa radiology-ga dhamaanteen in Soomaaliya iyadoo la joogo resource yar la haysto event oo time-keeda si fiican loo ilaaliyo la manage garan karo waqtigan fiirinay maalinta dhan qof walba waqtigu ku soo jeedinayo waxba ma dhaafin daqiiqad anigana waxaan rajaynayaa sidoo kale yes mowduucayga marka Soomaalidu waxay dhahaan wax beenoobo waxa ugu fiican balaayo inta la soo sheegay hebel dhintay iyo waxa dhacay haddii gadaal been ka noqoto waxa ugu fiican waaye waxaan soo bandhigi rabaa case fungal infection oo iska soo dhigay bone tumor soo marka wax beenoobo balaayo ugu fiicantiya ku dabaqmi kartaa isleeyahay bukaankeena waxa waaye 44 jir waa male 5 sano wuxuu la xanuunsanaa lugta qaybta hoose ayaa barar uga soo baxay kadib wuxuu raadiyay gargaar caafimaad meel gobol ahayd qalliin iyo waxba looga sameeyay sida uu sheegay laakiin uu soo laabtay 2 sano kadib bararkii wuxuu imaaday marka magaalada Muqdisho waxaa loo sameeyay baaritaano badan cudurrada guud oo sida liverka kidney kulli normal ahaayeen cudurro chronic ah ma qabin lugtiisa waa taasa sidaan ahayd muuqaalka idin muuqdo x-ray diisina waa tana طبعا x-ray da aan radiologist ma ahi laakiin waxaan soo qaadanay sida noogu qornay reportkii marka osteolytic lesion yani lesion lafta burburinayay oo soft tissue-ga iyo lafta wax gaarsiiyay waaye so waxaa la sheegay in differential diagnosis ay ugu horeyso wixii laga baqayay osteosarcoma another bone tumor oo aggressive noqon karo GCT iyo osteomyelitis that's why marka waxaa la sameeyay in la soo bixiyo biopsy la sameeyo la soo diro annaga waxaan soo gaaray marka 3 weel oo lagu kala qoray mid soft tissue mid lafta dhinaca meesha u dambeysay midna lafta dhexe histopathologically markii la process gareeyay waxa soo baxay picture-kan dabcan picture-kan cancer ma aha pathologists si fiican u fahmayaan waa lagu farxaa yani qof la filayay waxa inay cancer noqon kara markii la arko waxa meesha ka muuqda inflammation badan oo lafta xataa saameeyay lafta qaarna way dhimatay sidoo kale meeshan waxaan uga jeednaa another acute and chronic inflammatory cells iyo some granuloma maybe sawirkan ugu muhiimsan sawirkan waxa waaye colony waaye mustacmara ama bacteria ma aha sorry fungal colonies oo special stain loo isticmaalo PAS oo lagu arko fungal si khaas ah marka alxamdulillah diagnosis wuxuu noqday ugu dambeyn iyo mycetoma magaca caamka ku tahay Madura foot 180 sano ka hor India lagu ogaaday dhakhtar John Gill طبعا badana waxa keenta bacteria 60% ilaa 70 bacteriadaas waxa la actinomycetoma laakiin 40% ku dhawaad waxa keena fungal infection kaasana lagu magacaabaa mycetoma markii la isticmaalo mycetoma waxa loola jeedaa fungalka cudurkan dabcan wuxuu u baahan yahay qofka inuu trauma soo gaarto inta badan dadka beeraleyda iyo dadka cagaadaanka ku socda u badan yahay saas darteed marka labada nooc bacteriada waxay ku badan tahay meelaha roobka badan uu ka da'o annaga waan ugu yar yihiin wabiyada laba wabi baa qabnaa roobabkan sanadihii dambe waa isbedelayeen laakiin wadamada India kale iyo Bangladesh waxay qabaan wabiyo fara badan 100 wabi ka badan wadamada jiro fungal infection kan ugu badan maxay wuxuu ku badan yahay meelaha oo insufficient rainfall المهم soo soco bacteriada u badan nooc laakiin fungal kane waa 40% so in la identification lagu sameeyo inuu fungal yahay inuu bacteria yahay muhiim waa managementigiisa ma sahlan wuxuu qaadan karaa 1 sano
hal sano wuu qaadan karaa because waxay leeyihiin daawada gaaritaanka ay gaaraysa meesha uu fangalka sameeyey ayaa aad u adag waqtiga ilaalinaynaa dabcan wax badan ay keeni kartaa meeshan ku qoran waxaan rajaynayaa in la akhrisan karo lafta inay gaarto suuragal inay soft tissue ku ekaato suuragal waxay iska soo dhigi kartaa waxyaabo badan okay haddaan imaan differential diagnosiska waa sax in la soo geliyo cancers oo boonka ku dhaco sida osteogenic sarcoma iyo giant cell tumor iyo dabcan osteomyelitis oo TB-da ay iyadana ka mid tahay waxyaabaha keeno waxaan u gudbayaa reactionskay keento waa aragnay managementiga dabcan antifungal drugs waa muhiim inkastoo surgeryga uu role leeyahay marar badan waxaan rabaa inaan conclusionkayga kusoo gabagabeeyo cudurkan waa fungal infection ama bacterial infectionkiisa nooca especially eumycetoma waa very common waddankeena macnaha ma yaro waa in aan ku fikirno inay jiri karto mar walbo la arko maas lagu arko lugaha qaybta foodka especially baaritaanadiisa waxaa la leeyahay microbiological culture waa adag tahay in la grow up gareeyo so histopathological study sometimes waa lagu khasban yahay imagingka wuxuu leeyahay door weyn oo muhiim ah طبعا mycetomada marka maadaama aysan xuduud fiican yeelanaynin oo ay dhaxgalayso tissuegisi oo sida kansarka oo kale dhakhaatiirta surgeonskana waxaa la leeyahay waxaa wanaagsan in la soo jaro qayb healthy ah lagu soo daro sida kansarka loo sameeyo safety margin waa mahadsantihiin shukran jaziilan assalaamu calaykum ما شاء الله دكتور قاسم هذا الولد هذه الله ما استاش ثانك يو هذا هو حق وعي ستيج فرع تشيك كويتا وكهذا دون correction of congenital cortical challenge and congenital blood food فرع تشيك the stage is yours. Kan